مقديشو هي القمر، هرقيسة هي الأغر، كسمايو أحبها صومالي وأفتخر. مقديشو هي القمر، هرقيسة هي الأغر، كسمايو أحبها صومالي وأفتخر. أحبها صومالي وأفتخر، صومالي وأفتخر. أنا صومالي، أنا صومالي، أنا صومالي، صومالي وأفتخر. أنا 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ciwaanka maanta aan ka hadli doono wuxuu ku saabsanaan doonaa dhaqanka qabyaaladda ku dhisan. waxaan isku dayaa inaan ka hadlo waxyaalo muhiim u ah nolosha bini aadanka, oo aan filayo inay qof kasta iyo shaqsi kasta oo Soomaali ah ay saameyn ama raad ku yeelanayso diintiisa, sharaftiisa iyo noloshiisa bini aadan. insha allah waxaan isku dayi doonaa inaan xoogga saaro nooca uu yahay xiriirka u dhexeeya qofka Soomaaliga ah iyo bulshada ku hareereysan, yacni social environmentgiisa, sida qofka Soomaaliga ahi ula dhaqmo ama u dhexgalo bulshooyinka kale ee aan Soomaalida ahayn, iyo siduu u dhexgalo oo ula macaamilo walaalihiisa Soomaalida. waxay ila tahay in fahamka mawduucan iyo kuwa la midka ah inoo sahli karaan ama bilow u noqon karaan in aan wax ka ogaano aqliga bulshadeenna meesha uu taagan yahay Soomaali ahaan. ha noqoto waxaan annaga isu haysano iyo waxaan u haysano inay yihiin dadka qoomiyadaha kale u dhashay. so waxaan ka hadlaya waxaa waaye thawdkeenna, waxaan isu haysano ama thawdkeenna ama thinkingkeenna ama fikirkeenna ma saxan yahay mise waa qaldan, inaan isla aragno wixii aan iskala arki karno, iyo fikradaha aan ka haysano ummadaha kale ee nagu hareeraysan. haddaan isku dayo in aan wax iska weydiino waxa aan ka fikirayno, waxa aan ka fikirayno aan isu haysano ma nahay sida aan isu haysano oo aan u haysano dabeecaddeenna inay tahay ma tahay, sida aan u haysano dhaqankeenna inuu yahay ma tahay, diinteenna aan haysano tii Nabi Maxamed sala allahu calayhi wasalam ka soo aroortay ee originaalkeeda ahayd ma tahay, mise waxaa naloo soo dhodhoobaa naloo dhiibi. si taas la mid ah waxa aan ka firayno ummadaha kale, dadyowga kale, bulshooyinka kale, qoomiyadaha kale, waxa aan isugu sheekayno ma yihiin. bilmatalan, marka laba qof ama in ka badan aan ku kulanno, weliba aan ku kulanno baraha bulshada ama meelaha kale aan ku kulanno, waxaa laga yaabaa inaan ka sheekaysano waxyaalo noo gaara oo ay ka midka yihiin deeqsinimadeenna. yacni dadka Soomaalida waxaan ka hadalnaa
inaan deeqsinahay. waxaan kaloo ka hadalnaa dhaqankeenna iyo siduu isaga fogeeyo anshax xumada, quursiga, iyo dhaqankeenna inuu yahay mid dhiirigeliya geesinimada, soo dhaweystana ku dhaqanka diinta islaamka, rumaysanna inay tahay diinta keliya ee xaq ah ee allahu subxaanahu wa tacaala lagu caabudo. runtii waxyaabahan hadda aan sheegay waxyaalo badan ayaa ka jira. waanu imaan doonaa insha allah kuwa aan rumaysannahay way waxba ka jirin. haddaan marka waxyaabaha ka jira intaan hadda ka hadlay usoo laabto, deeqsinimada, anshaxa iyo geesinimada, maxaa saddexdaas ka jira oo dhaqankeenna uu ku salaysan yahay soomaali ahaan? deeqsinimada aan ku hormaro. deeqsinimada waa wax qof kastoo soomaali ah u og yahay. ummadaha adduunkana ay nagu yaqaanaan. waa wax ilaahay nagu nimceeyey. waxaana si rasmi ah u arkaysaa marka ay masiibooyin dhacaan, abaaro, fatahaad, waxaa arkaysaa soomaalida in ay isu naxariistaan, isu gurmadaan, iyagoo isugu gurmanayo walaalnimo iyo inay istaakuleeyaan, waxa isu qabtaan, ay isu gargaaraan. markaan imaado anshaxa, guud ahaan waan ka fiicannahay xagga anshaxa. alxamdu lilah. laakiin waxaa jirta 3 albaab oo anshax xumada ay nooga imaan karto, oona laga soo geli karo, oo weliba weerar looga hayo dadka soomaaliyeed. albaabka koowaad waa albaabka diinta. albaabka labaadna waa midka familka iyo dhismaha familka. ka saddexaadna waa albaabka laga soo geliya maanduuriya iyo in lagaa burburiyo caafimaadka iyo dhaqaalaha. so haddaan wax yar fududeeyo, meeshaan tan kamaanan hadlaynin, laakiin haddaan wax yar fududeeyo, xagga diinta waa waxay ka mid tahay meelaha la iska soo galo oo dad badan ay jecel yihiin inay dadka ka weeciyaan diinta, caqiidada, si aad u caabuddo waxaan allahu subxaanahu wa tacaala ahayn, oo caqiidadii rasmiga ahayd lagaga leexi. xagga familka iyadana waa albaabada la isku dayo inay laga burburiyo ummadda, sida waxyaabo fara badan oo adduunka ka socda, sida ragga isku sameeya vasectomy waa nin madhalays iska dhigay oo laga xiray oon ilmo intuu markaas baxo naaga u guursado, ilmana uusan uga cabsan. subxaan allah. ama dumarka contraceptiveka isticmaala oo without medical reason, iyadana yani waa waxyaabaha bulshada burburiya una diido, taasoo albaab u noqota laga geli kara inuu nin doorto, naag doorato. taasina waa waxyaabaha anshaxumada ku ah diinta islaamka iyo dhaqankeena. ta saddexaadna waa in maandooriye albaabka lagaaga soo geliyo si aad maalkaaga ugu isticmaasho, caafimaadkaagana ugu burburiso. inuu waxaa keliya hadda soomaaliya dhibaatada ku hayo wuxuu noqon karaa jaadka. okay, so saddexdaas waa saddexdana laga soo geli karo, laakiin alxamdulilah ummad ahaan anshaxeena weli waa fiican yahay. albaabadaas waxaan ugu soo daray inaan iska ilaalino. so xagga geesinimada haddaan usoo laabto, waxaan leenahay taariikh dheer oo badan oo aan la inkiri karin. waxaan leenahay geesiyaal fara badan oo taariikhda ay xusto, sida geesigii wilwaal, axmed gurey, sayid maxamed cabdilla xasan,
sidoo kale geesiyaal soomaaliya u dagaalama iyagana sida xaawo taako dhagax tuur taariikhda waxay kaloo qoraysaa geesiyaashii soomaaliyeed ee walaalaheenna dalka jabuuti ka xoreeyey gumaysigii reer galbeedka ahaa ee cadaalad darrada ku haystay taariikhda waxay kaloo qoraysaa xukuumad soomaaliyeed oo jirtay ama inay jirtay xukuumad soomaaliyeed oo la dagaalantay taliskii mingistu xaylamaryan 1977 tustayna in dadka soomaalida ah ay yihiin dad isjecel ogolaan karinna gumaysiga iyo dulaysigiisa taariikhdu waxay kaloo qoraysaa in xukuumad soomaaliyeed oo jirtay ay ka hor tagtay in dad soomaaliyeed oo shacab soomaaliyeeda ay dowladda kenya sanadkii 1980 rabtay inay tirtirto ay ka hor istaagtay ilaahay ka soko dadka qaarkiis taariikhdaas waxay u yaqaanaan gaarisa gubay kama hadlayo maxaa la yidhahdaa maxay dowladdaas ku saxnayd maxay ku qaldanayd waxaan ka hadlayaa taariikhda rasmiga ah ee soomaali leedahay ee bugaagta taariikhda ku qoran waxaan ogahay in masiibooyin ay nagu dhaceen 1986 meelahaas waqtiyadaas masiibooyin inay dhaceen oo shacab soomaaliyeed madaafiic lala dhacay si aan xaq ahayn dad soomaaliyeed la dhacay gobollo soomaaliyeed lala dhacay so laakiin waxaan ka hadlayo waa guulihii soomaali oo wada jirto oo walaalo ah oo wada socoto oo ishaysato oo ay ku jiraan qof kasta oo soomaali ah ay gaareen markaasoo kale waxaan dhahaynaa alxamdulilah waxaan arkaynaa in waalidiinteen ay soo shaqaysteen ka taariikh ahaan waalidiintood yani jilkayga waa la gumaystay talyaani iyo ingiriis iyo waxbaa isu daba maray waalidiinteen waa shaqaysteen maasha allah laakiin annaga nagu jiifta sama insha allah annagana ilaahay faraj waa noo furi doona haddaan barnaamijka kusoo laabto waxaa kaloo jiro waxaan aaminsannahay aan ka aaminsannahay inay yihiin qowmiyadaha kale sida markaan ka hadlayno dadka orientalka ah asiyaanka waxaan ku sheekaysanay inay yihiin jiniiska waxbaan ka aaminsannahay jabaniiska waxbaan ka aaminsannahay carabta waxbaan ka aaminsannahay yurubiyaanka afrikaanka kale marka waxaan ka hadlaya waxaa waaye oo aan xoogga saaraya waxaan isu haysanno iyo waxaan ka filayno dadyowga kale just give you update si kastaba ha ahaatee waxaa jiro dabeecado noo qaas ah oo naga duwaayo annaga noo gooni ah noo qaas ah oo naga duwaayo ummadaha kale ee adduunka ku nool xitaa kuwa muslimiinta aan wada nahay ee aan ku wada jirno ummatulmuslimiin sidaa awgeed waxaa u baahan nahay inaan si qoto dheer u fahmno sababta aan ku doorannay dhaqanka ama nooca maanta aan u dhaqanno insha allah haddaan sii wadno waxaan arki doonaa wuxuu ka kala duwan yahay dhaqankii shalay lagu dhaqmayay iyo dhaqanka maanta lagu dhaqmayo waxaase hadda ka hadlayaa waxyaabaha ummadaha adduunka ay nagu yaqaanaan oo ay nagu caayaan soo waxyaabahay nagu caayaan annagana aan isu dhaqaano
marka isu imaano sometimes laga yaabo inaan mention garayno ama ka hadalno yani aan feel garayno inaan meelahaas down ka nahay ama ka hooseyno hoos noo dhigay ee naga hoosmariyey ummadihii adduunka ee aanu wax isugu quuri la'anahay isu aqoonsan la'anahay isu walaalaysan la'anahay isula degi la'anahay isu dhexgeli la'anahay ee aanu isu aamini la'anahay si kale haddaan u dhigo waxaa jira wax aan ka rumaysannahay walaalkeenna nala dhashay ee nala dhiigga ah nala diinta ah nala afka ah nala dhaqanka ah waxaa jira wax aan ka rumaysannahay haddaa idin sii fududee qof kasta ama shaqsi kasta oo soomaali ah waxaan ka rumaysannahay inuu u dhashay ama uu yahay reer ama cid ama qabiil isani weliba magacyaan u bixinaa isani maalin walbo waxaa u malaysaa warshad magacyo cusub aan soo saarna stickers that we give into our brothers waxaa isu naqaanaa ciddii bakeylaha cuntay ciddii buuraha kortay ciddii boolaha qodatay cidda doqomada ah cidda waalan cidda tuugada ah cidda habaaran whatever it is waxaan qofka soomaaliga ah dusha oga dhejinaa magac qabiil أنا صومالي وأفتخر أنا صومالي وأفتخر وأرضنا نحبها وحبنا سيستمر فأرضنا هي الأمان صومالي وأفتخر وأرضنا نحبها وحبنا سيستمر فأرضنا هي الأمال وأرضنا نحبها وحبنا سيستمر فأرضنا هي الأمال صومالي وأفتخر صومالي يا إلهي احفظ لنا بلادنا 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 يا مقتدر يا إلهي احفظ لنا بلادنا يا مقتدر فإنني صومالي صومالي وأفتخر صومالي صومالي وأفتخر أنا صومالي صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر